السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة ميل كستا جوجتين waxaan idinku soo dhaweynayaa casharkeena maanta casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nin iyo xaaskiisa oo dagaal adag ka dhaxeeyo dagaalkaasoo sababi doono in ayaga kala tagaan fadlan hadduu ku soo gaaro casharkan like saar si share gareey si asxaab badan u gaaro anagana ugu helno asxaab wanaagsan Conversation husband and his wife wada hadal nin iyo xaaskiisa batitu qaybta labaad qaybteena koowaad waxay noogu dambeysay ninka hadalkiisa oo dhahay be patient dulqaad yeelo I undertook waxaan soo qaaday your responsibility mas-uuliyadaada when you followed me markaad igu soo raacday from your family qoyskaaga knowing adigoo og my financial problems dhibaatooyinkayga dhaqaale casharkeena halkaas ayaa noogu dambeeyey qaybta koowaad qaybteena labaad isla aragno wife xaaska How can I have patience? Sideen dulqaad u yeeshtaa in our honeymoon aroos useeb markaan ahayn we were happy couples waxaan ahayd lamaana isku faraxsan and iyo nowadays maalmahan you started waxaad bilowday to war inaad raacdo other girls gabdhaha kale How can I have patience? Sideen dulqaad u yeeshtaa in our honeymoon markaan aroos useeb ahayn we were happy couples waxaan ahayd lamaane isku faraxsan and iyo nowadays maalmahan you started waxaad bilowday to war inaad raacdo other girls gabdhaha kale Husband ninka Do not scold me iguma qaylin kartid I am free waxaan xur u ahay to marry inaan guursado 4 wives afar xaas You expired wad dhacday and became waxaad noqotay slut old araajo weynaatay and iyo quarrelsome iyo qof muran badan and iyo I am looking for waxaan raadinayaa a girl gabar can occupy ay buuxin karta your position booskaaga Do not scold me iguma qaylin kartid I am free waxaan xur u ahay to marry inaan guursado 4 wives afar xaas You expired wad dhacday and iyo became waxaad noqotay slut old araajo weynaatay and iyo quarrelsome qof muran badan and iyo I am looking for waxaan raadinayaa a girl gabar can occupy ay buuxin karta your position booskaaga